جي أي أدمود إنه وناجا هدوسا ما يوحنون سنة عرف سؤال برا إنه يدك برا بيشادو كجور باب جي شهادة يوتيوب كمرة وقاتي سدح بقول يكون قاري يكون تنقفض بكفر باب جي أو محاضرة دينية يوتيوب كيسة صار لي قف إيكين أول مرة مولي هل قف أو صوماليا أو باب جي يوتيوب كيسة مالين أنتو براه بالشدة صار لي إلا يمانتا نينكي إيكينو $1 بولي $1 باب جي ويغان قدوه سوحو صدقي ويل يرو عن والدونهاي والله يتوان جرا أو كوالاي ركاسو ليهاي وحاصوب حي فنان وي يابك أدونك وويل يرو اللوبهنا إنو يراد والقرآن كبرو باب جي ونينكي لا آلي دبدا هويني أجنبي كاه أو غاري كوري حيثو أيو وحو كبحي إيربورك مقالة مقدشة سنير بوف مرغاتي بيكا إلا وحي مسلمة أي إلهي يقانا إلي مرغاتية أمام الملأ يحس كيسكم نقود إمام نكال إله باب جي أمام أمد هرتودا أمد يوود بالدقي سعيدي أيوة حاستي الله فلان قصميني ولقوا مقعب الشيخ صلاة شنتاي أيام محاضرة وكوك قبلنا أيام مقالة مقدشة مجد كيا لوحة ودلعيني أيدين وجيدي يوتيوبر كلقوا مقعب بابجي كاسيو شيقي عرور يريرا إنو كوالي وليه هاي وحاتين فنانين inta uu dhaqan celin lahaa waxa kale oo sheegay inay ku xiran yihiin bartiisa ku dhawaad 300 oo kun oo qofood YouTube-ka hase yeeshee uu yahay ruux dhaqan xun oo haweeney uusan qabin safar la aaday dalkaasi Kenya magaalada Nairobi ayna iskula safreen gurina isla saaxanayeen muddo dheer waxa uu sheegay shariicada islaamka guud ahaan inaysan qabin haweeney aadan qabin qaraabadaada dhow walaasha aan ahayn iyo hooyada iyo qaraabadaada kala duwan inta la safrata in aad halkaasi muddo isla joogtaan taasina waxay dhaawacaysaa yiri sharafta iyo cisada iyo dhaqankeena Soomaaliyeed iyo diinta intaba waxa uu kale oo dhaleeceyn u jeediyay in ciyaal yar oo qaraabo ay yihiin sheeqo inta wada uu ka dhigay fanaaniin kuwaasi oo leeyahay waxa tiin fanaaniin waaweyn waxa uu yiri waa uu ka waalay caruurtii waxa uu leeyahay waxa tiin fanaaniinta loo baahan yahay iyo kuwa sanadkan soo baxay sida darteed waa inaad ku soo beertaan fanka asigoona dhiirigelin iyo wada aad u xun ku sii hanuuninaya waxa uu sheegay ninkan in YouTube-kiisa hal maalin muxaadaro uusan soo dhigan iyo waxyaalo badan oo dhanka qeyrka ku saabsan wiligeedna aan la arag asigoo dad caawinaya sida darteedna ninkan isla markaasi uu aad u dhaleeceynay waxa uu sheegay in falalka uu ku jiro ay u baahan yihiin inuu ka toobad keeno hase yeeshee nasiib darro haysata aweed uu wili si dhaxmaquranaya halka janalkeedii ka soo gudbinay waa Dooxa Media idin ahaantiin bood ku maasantiin barnaamijka la socodkiisa